aabba maxamed cabdi xaashi loona garan og yahay diini waa aabba muddo dheer ahaa shaqaale dawladeed 1975 ayuu bilaabay shaqada dawladda hoose magaalada Boorama. aabba maxamed cabdi xaashi diini oo maanta aan kula kulmay mid ka mid ah hoteelada magaalada Boorama ayaa waxa uu sheegay in muddo 7 bilood wax mushaar uusan qaadan joojinta mushaarka iyo waxa uu sheegay inay tahay cunsuriyadu kala kulmay meeyirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi maadaama dhibane maxamed xaashi cabdi diini uu deegaan ahaan uusan ka soo jeedin degmada Boorama waxa weeye wax adduunya oo hanti lagu leeyahay konton iyo sano shaqeynay waxa weeye ma jirto shan buug baan hayay shantii buugna waxaan u dhigay arday yaa u dishay ilaa hadda wuxuu yiraahdaa buugtii markii ninkaan hadda waa buugtii looga sheegay hanuunta waxa weeye wuxuu ugu sameeyay cusuriyad waxaan reeboon uga baran ka judub iyo ninkaan waa laba nooc Soomaaliya kaasna waxa weeye mushaarkii kordhiyay ummadda waxa weeye shaqaalaha maanta xulka ka degan aan shaqada laga fursiyay xilkii laga qaad shaqada qaybta cashuuraha gurtana ma ilaa aqoon reeboorba awdal ma jirto ilaa sayla ilaa loo haya waxa weeye uu cusriyay mushaarkii baan ku leeyahay imka bishii lixaad baa ii socota oo mushaar aan qaadan sababta inta jiifo waan bukay waxa weeye ima soo dul istaagin shaqaalihiina waan ahay war maxaa qabtaa ima oran wuu xiray shanta buug wuu haystay shantii buugna waan u keenay percentage aan ku lahaa 30% baan ku lahaa ima siin wuu haystaa mushaarkii wuu haystaa waxa weeye wuxuu i baday ciil iyo caro colaad uma qabo dadka Soomaaliyeed milfay awdalaanahay Boorama deganahay guriga ku leeyahay ninkaas wuxuu igu sameeyay waxa weeye waxaan arag la maqlo igu sameeyay aabihii oo meeyda iyo abtida noo dhibin aan wax ka aasaarin oo lacagtooda isku aastay aabihii waxa weeye wuu idilay wuu karaama siin waayay bini'aadamna iga soo qaadi waayay waxa ummadda islaamka lagu igu sameeyay ilaa yoom hada waxa uu sheegaya dawladda Soomaaliland in cusriyay waxa weeye 550 qof oo shaqaalaha shaqeeya aanu beega dhex saaray oo maraxaan baatay u leeyahay waa ruwaay maxamed maraxaan baa iga leeyahay laakiin awdal baan waa deganahay wadaatay gabar deegaanka ka qaba waxa weeye wuu cusriyay waxaan ka cabanaya waxa weeye intaas soo mushaarkeygii oo waayay percentage aan ku lahaa lacagta laga siin waa la cusriyay ciidi carar la jifa waxa weeye wiligiina waxa weeye ninka shaqaalaha ugu horeeyana 1975 baan shaqada ka bilaabay 1975 ka bilaabay shaqada waxaan ka shaqeeyay immigration officer banka waxaan ka shaqeeyay Hargeysa luqayanka Talyaaniga nabsada ka wajaalanka waxa weeye intaas soo shaqeeyay 1975 baan shaqeeyay shaqada bilaab ilaa yoom hada waa shaqeeya waxaan ku sheegay laqaan daro intaasoo kaliya ma ahayn sidoo kale aabba cabdi xaashi diini waa aabba xanuunsanaya sidoo kalena waxa uu sheegay in muddo 20 cisho uu ku xidhnaa saldhigga dhexe magaalada Boorama xadhigiisa ayuu igu sheegay inuu ka dambeeyay meeyirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi magdalku ii dilay wuxuu ii dilay anoo shaqeynaya shaqada iga joojiyay xarigii guri saldhigga booliska waa la xiraa dinta laga baxnaa waa taasha ku xidhan saldhigga booliska warshada bugta isii oo xisaabiye inuu soo waajima saldhigga guri waxaan ku sheegayaa waxa weeye arxan male marka dambe yaa ku soo daayay mar haddii soo waxa i soo daayay jaamac la yiraahdo jaamac Yuusuf la yiraahdo iyaga soo daayay saldhigga booliska Cabdiqaadir iyo Cabdiwahaab oo kamid ah dhalinyarada magaalada Boorama oo iyaguna goobtaasi joogay ayaa waxay si dareen leh uga hadleen dhibaatada haysata aabahan waxaana ka dhawaajiyeen wuxuu noo sheegay maxamed cabdi xaashi inuu ka soo jeedo dhalasho ahaan degmada Aabudwa laakiin uu Boorama inta oo dhan ku barbaaray qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed ah dawladda oo sanad ka hawlgeliyay muddada inta 75 ilaa maanta
ahna nin reer Boorama oo rasmi ku ah oo degan oo xaaskiisa iyo carruurtiisuba reer Boorama yihiin waxa nasiib darra halkan isagoo ku ooyay oo ilintu ka socotaan kula kulanay wuxuu noo sheegay inuu 7 bilood mishaarkiisii dawladda hoose una siin maayirku oo hayb soocay oo midabta kooray waa nasiib darro in degmo la hormariyay suugaysay raawda loo reer Boorama de duqaydii baa soo soo wilmaynaysa ninka duqaydii ka ilmaynayso umalayn ma inuu degmo hor sida uu noo sheegay waxa hayb soocay oo midabta kooray oo 9 shaqaalaha ka dhax saaray kliigi maayirka hadda degmada ku soo noqday anigu maayir ma aqoonsaniye maayir ku sheeg baan u aqaana ninkaas hayb soocay waxaan bartan kula kulanay isagoo ooyaya oo ilmadu ka daayso anagu rajo iyo ifafaale kama qabno maayirkan waqti xaadirka waqtigiisu gabaabsiga galay وعمران حسين آدن وررك مقبايا تلفزيون كعالمي ستار تي في بورما.